waxaan ku sigtay inaan biyaha ku hafto. waxaan ognahay in ay dhibaato badan kala kulmaan dhalinyaro badanna ay ku dhammaadaan. Waxaan u dhiman gaaray cabsida aan ka qabo biyaha iyo jacaylka aan u qabo dabaasha. Waan ognahay dabaasha inay khatar ama halis tahay, laakiin waxaa ka khatarsan inaadan aqoonin sida loo dabaasho. Dhammaantiin waxaan jecelnahay inaan xeebta isbuucii mar tagno ama ku dabaalano. Muuqaalkan maanta waxaan ugu talagalnay idinku tuso waa maxay faa'iidooyinka dabaasha ay noo leedahay. Waxaan mar saddexaad ku laabtay magaalada Warshiikh oo runtii ah goob dalxiiska iyo dabaashaba ku wanaagsan. Warshiikh waa magaalo xeebeed lehna biyo nadiif ah. safarkan aan ku tagayo Warshiikh waa mid aan idinku tusi doono waxyaabaha gaarka ah ee magaaladan leedahay. Aan ku bilaawno inaan ka hadalno dabaasha. safarkiina Warshiikh wuxuu ahaa mid dalbarasho iyo dalxiis, laakiin aniga waxaa iga dhex buuxisay mar walba quruxda iyo biyaha badda ku hareeraysan magaaladaas Warshiikh inaan ku dabaasho oo aan quuso. safarka waxaa igu wehelinayay 4 dhalinyaro ah oo aan ku saaxiibnay soo gudbinta muuqaal samaynta iyo ku dalxiiska dalkeena. waxaan ku heshiinay inaan dabaalano oo aan quusno ilaa gunta hoose ee badda. markii iigu horeysay ee aan sameeyo ayaa ahayd runtii. way jirtay cabsi aan ka qabo biyaha iyo aqoontayda dabaasha oo aad u hooseysay. aquaphobia ama cabsida biyaha waa cabsi caadi ah sida inaad bahal ama buur ka dhacdo ka cabsato. waxaa laga yaabaa inay si weyn ugu kala duwanaato darnaanta cabsidaas dadka qaar. haddii aad ka walaacsan tahay gelitaanka badda ama biyaha ama ay ku cabsi gelinayso fikradda dabaasha, keligaa ma tihiin ogaw. dadka qaarkiis waxay ka baqayaan oo keliya biyo qoto dheer ama hirar xoog leh, halka qaar kalena ay ka baqaan barkadaha dabaasha. si looga gudbo cabsida dabaasha waxay noqon kartaa mid adag. waxay dad badan ka celin kartaa inay bartaan dabaasha. dhalinyarada waxay heleen fursad ay ku bartaan dabaasha, weliba si xirfadeysan. badanaa waxay ku dabaashaan ama ku bartaan dabaasha xilliyada badda ay degan tahay jasiira ama liido. dabaasha waa xirfad gaar ah oo la barto. dadka sida fiican u yaqaana xishmad gaar ah ayaa la siiyaa. Cabdalla Fiqi waa baraha cashirada dabaasha oo runtii ah khabiir ku xeeldheereeya dabaasha. wuxuu inoo sharxi doonaa dabaasha waxa ay tahay, waxaan u baahannahay si aan u dabaalano, iyo bax dabaalato waxa ay qabtaan. injineer Cabdixakiin aad ayaad u mahadsan tahay. annaga haddii aan nahay kooxda bah dabaalato, howlaha aan qabano waa howlo la xiriira dabaasha. muddo dheer aan kusoo jirnay, haddii ahaan lahayd barideeda iyo barashadeedaba. ilaa 2017 ilaa hadda ayaan ku jirnaa howshaas. dad badan ayaan soo saarnay. waxaan haysanaa macallimiin isugu jirta wiilal iyo gabdho. waxa aan u adeegnaa arday ay u badan yihiin 80%. haddii aan dib ugu noqdo muhiimadda ay leedahay dabaasha, waa dareemi karnaa qofka bini aadamka muhiimad aad u weyn ayay ugu fadhisaa oo mararka qaarkood noloshiisa ku saabsan. waxaana wada ogsoonahay islaamka inuu dhiirigeliyey barashada dabaasha. marka qaybta koowaad waa qayb ah xirfad oo qofku isku bixin karo, oo xirfadaas oo xataa xayawaanka qaybo kamida ay yaqaanaan sida maroodiga iyo xoolaha aan dhaqana qaybo kamida lo-doo kale. waa dabaal
qofkii uu ku samata baxayo xirfado badan aan lahayn laakiin qofku uusan biyihii ku dhimanaynin. Waxaa intaas xigta marka dabaashu sida caadiga ah oo ciyaaraha kale hadda la yaqaano qayb ka mida waaye, waa lagu tartamaa qaybo kala duwan ay leedahay. Taasina waa qayb kale oo isugu jirta noocyo kala duwan oo aan barno dhalinyarada. Waxaa kamid ah dabaasha la yiraahdo dabaasha xorta ah, dabaal duudka, waxaa soo hoosgelaya dabaasha la yiraahdo dabaal xabadka iyo dabaasha balanbaalista. 4 nooc oo lagu tartamo waaye. Waxaa kaloo jira xirfadda badbaadinta, qofkii inuu dabaal yaqaano iyo inuu u gurmado qof hafanaya oo sida ugu habboon oo uu u caawiyo. 2 qayb ay kala tahay, barashay u baahan tahay badbaadadu. Marka taasna dhalinyarada waa barnaa. Fursadda qofka uu ka heli karo baddaas inuu ku dabaasho 4 xilli ee sanadku ka kooban yahay waa 2 xilli oo ka mid ah. Qof walba oo bulshada ka mid ah ee baddaas aadaya waxaa fiican in uu la socdo xilliga ku habboon iyo xilliga aan ku habboonayn. Waxaan ognahay in ay dhibaato badan kala kulmaan dhalinyaro badanna ay ku dhammaadaan si tirabeela weliba. Waana arrimo soo noqnoqda sanad walba oo aan laga gaashaaman. Waxaa annaga aan xoogga saarnaa xilliyada ay baddu ay baariga tahay ee ay ku habboon tahay in la dabaasho oo ah xilliga guga oo bisha 3aad iyo 4aad iyo bisha 2aad qayb ka mid ah ilaa May. Xilliga ku xiga badda laguma dabaalan karo, way ka xasan tahay. Waa xilliga xagaaga oo June iyo July iyo August. Waa xilliga ugu badan ee dhalinyarada ay ku dhammaadaan oo ay u maleeyaan in lagu dabaalan karo, laakiin annaga aan ka fadhiisano xilliga jiilaalka ah ee bisha 12aad dhammaadkeeda ilaa 1aad iyo 2aad. Xilligaasna waa xilli dadka ugu badan ay qaado. In badan waxaa dhacda markaan ka fadhiisano in dad badan ay dhibaato kasoo gaarto. Tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa hadda bisha 1aad iyo bisha 2aad markii aan ka fadhiisanay 10 beri anagoo fadhin 10 qof aa ku dhimatay. Marka waa isku daynaa in badan oo kamid ah inaan wacyi gelino. Way fiicnaan lahayd dadka youtuberska sida adigoo kaleeta dhalinyarada bulshada social media saameynta fiican ku leh in ay arrimahan oo kaleeto waa bogaadinaynaa in ay u gudbiyaan. Marna lagama daaho in la barto sida loo dabaasho. Dabaashu ma ahan wax adag oo aan la baran karin. Inaad biyaha ku dhex jirto waxaa laga yaabaa inaad ku dareento walwal yar. Ma ahan wax u baahan waqti dheer, waa wax muddo gaaban iyo si fudud ba loo baran karo. Laakiin waqti kadib waxaad baran doontaa helitaanka heerka kalsoonida. Waxaa laga yaabaa inaad hore u maleysay inaan la qiyaasi karin. Aniga ahaan inaan biyaha ku dhex jiro waxay iga caawinaysaa dhimista dareenka walaaca. Xitaa haddii aan dhageysto mawjadaha badda waan isteexo. Waxaad u baahan tahay inaad waqti badan ku qaadato biyaha dhexdooda. Ku qaadashada waqti ku filan biyaha waxay kaa caawin kartaa inaad hesho kalsooni oo aad noqoto qof dabaasha si wanaagsan u yaqaana. Inta aad ku sii jirto biyaha waxaad u baahan tahay naftaada inaad u tababarto si aad ugu raaxaysato ku dhex jirista biyaha. Waxa kaliya u baahan tahay waxa waaye meel munaasab ah iyo qof tababara ah.